السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاشين أممنا إيا مركله عاود الله سبحانه وتعالى وكرها للنقضة وحان ربا إن آن إذن لو ذاقو research أما علمي بارتان إن لغو سميني إن بيتروتسكا أما جيتك لو يقانو بيترايفكا إن آن أنيقا إيا أديقا بأن كفائدة سنو ما شاء الله تبارك الله إن علوم بدن أو ساينسيد أما نوتريشن أيا وحيكو howlanayeen waxqabadka dhirta ama mataqaana ma sha Allah tabaaraka Allah fruitka iyo vegetable-ka iyo dhirtaba sidoodaba isiyaabaha caafimaad ee looga faa'iideysan karo hadaba bugaagta aan gacanta ku hayo oo kamid ah research-yadii dhaqaatiirta qaar ay soo sameeyeen herbal medicine ama waxyaabaha loo yaqaano natural healing koodadkii iyo meelihii mataqaana dhakhtarkaas uu soo qoray nabiidnillaahi baari dashboard-ka ayaa idin soo saari doona hadii Ilaahay subhanahu تعالى إن أكرر للنقضة إن وان وذا نقانا إن وذن كيجينا آدي آد أيو أغبحة إن بيتراف أي سومالي ذو أتقانا إن أما بيت روتس هدبا إن سيدي أتقانا دبا فإذا ينك أولي هاي فإذا ينك عافمات أولي هاي فإذا ينك إسقرحنت أولي هاي حاجة إسكينك يسبدل كنرلاد كوجاري كرت ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى إن جت كاسوحة أوسيي إن نمعوين فربضن هدبا جت كاسي ما شاء الله تبارك الله إن لو يقانو بيترافكا فإذوينك أولي هاي يا وحاكمد أكو هي ما شاء الله تبارك الله قبلها الصومالية ذو مركا عبتان إن عبتان كيسا أما اسموذي كيسا إن وجودها وجهها أما سكين كاغا وسينايو جلودين محالي رهدا دلال سكينك قفك أو صبحة ما شاء الله تبارك الله أو قفك متقانا إن سكينكيسا وكدغايو أما مقاركيسا وجهك صارن وكدغايو مid aad iyo aad متقانا نعيموا أو قروح بدن اللهم صل على محمد إن أيضا كريم أو آن كسميي إن كريم نايت كريم إن أساق كسميسن بإذن الله باري إن هوس أسي دادقا وحاكي لي دونتا إن يوتيوب يدي هوري إن صور دافني حدنا وحان أقود بيا ما شاء الله تبارك الله دنيعي كلا إيو بنفتسك كلا أولي هاي إن اللهم صل على محمد إن فإيدوينك كلاته أولي هاي بيتروتسك يا حكمت إن أوقع فائدة أنيجي أديكبا ولا لها ديكر كلا ديكركا أيو هوس وديكا وبلاد برشركا هوس أيو وديكا وحوك الله سمية أو قيب وين وكقاتا إن عافمات كودنها وحوك الله قيب وين وكقاتا ديجريدا إن ولا لها أما ضدك أما دلنيردا إن أتلقى أما سبورتسكا كتيرو آدي أيو أنفعيا ما شاء الله تبارك الله إن ودسو مرقيضو ذا يو إسلام رحان تاسنا هي إن أوسيو إنرجي بدن أما sideedaba ee qofka dareemaya in daal dareemaya oo dhanna aad iyo aad buu wuxuu u qaadaa ee daalka sababta oo ah wuxuu siinayaa qofka bilow aadmiga energy aad iyo aad u wanaagsan ayuu siinayaa dhinaca kale waxa ka heli kartaa sidaan meesha ugu soo qorayba vitamins iyo minerals badan ayaa ka heli kartaa ma sha Allah tabaaraka Allah oo ay kamid yihiin vitamin C vitamin K vitamin E vitamin B6 zinc iron magnesium potassium iyo qaar kaleba isla mar ahaantaas rich of iron ma sha Allah tabaaraka Allah dhiigeerida wuxuu aad iyo aad uga caawinayaa waliba dhinaca ironka ayuu aad iyo aad uga caawinayaa isla mar ahaantaasna dhiigaaga wuxuu siinayaa flow of oxygen si uu mataqaana wadnahaaga sababta uu u caawinayo oo dhiigana uu kor ugu qaadayo ma sha Allah tabaaraka Allah blood pressure-kana uu u dejinayo waxa laga helaa maado kordhinaysa oxygen level-ka maxaa la yiraahdaa ma sha Allah tabaaraka Allah dhiiga oo dhiiga uu ku kala transfer gareynayo dhiiga uu ku kala soconayo ma sha Allah tabaaraka Allah nimcooyinkaas oo dhan ayuu leeyahay dhinaca kale wuxuu bixinayaa marka aad heshid elementiga uu leeyahay qofka marka uu cuno wuxuu u korinayaa ma sha Allah tabaaraka Allah timaha cidiyaha skin-kana mataqaana ma sha Allah tabaaraka Allah kor ayuu ugu soo qaadaya oo qofka mataqaana skinkiisa wuxuu kamid yahay waxyaabaha gudaha ka dhalaaliya dusha hadii laga marsadana ma sha Allah tabaaraka Allah dhalaalin kara ayuu mataqaana uu kamid yahay
wuxuu kaloo faa'iidada kaleeto ee weyn ee uu xambaarsan yahay ayaa waxay tahay wuxuu kor u qaadaa difaaca jirka ayuu kor u qaadaa oo immune systemka ruuxa ayuu wuxuu u qaadaa kor u qaadaa oo qofka mataqaanaa qaata ee beetrootiska qaata ee weekii hal mar ama laba mar walba wuxuu xoojinayaa immune systemkiisa ayuu aad iyo aad u xoojinayaa. allahumma salli calaa maxamed. haddii uu laakiin ma fiicna in qofka maalin walba uu qaato muddo dheer, laakiin waxaa loo baahan yahay qofka inuu soo celceliyo oo bishiiba adiga uu ka helo mataqaanaa wiigiiba uu ka helo waxaan dhihi rabaa kaab uu ka helo maasha allah tabaarakallah, ama wiigiiba 2 kaab uu ka helo. haddii aad tahay walaalaha sameynaya ee ku howlsan in ay cayilka iska dhimaan maasha allah tabaarakallah, wuxuu ku geli karaa positionka cuntada ayuu ku geli karaa asaga iyo salarkiisaba, isla mar ahaantaasna waxaa ka helaysaa dhereg zaa'id ah ayaa ka helaysaa, jirkaagana wuxuu u function gareynayaa ama uu u shaqeynayaa si wanaagsan ayuu u shaqeynayaa adiga oo yareysanaya of course cuntooyinka kale, laakiin waa inaa wadaa maxaa la maasha allah tabaarakallah aa la heshaa exercise zaa'id ah, waa inaa la heshaa maasha allah tabaarakallah, oo dadka atliiga sameynaya sportska dheela maasha allah tabaarakallah cayilkooda dhigaya iyagana goonidooda ayuu zaa'id mataqaanaa ugu anfacaa. ma aha dadka kale inuu idin caateynayo, laakiin maadaama uu powerful uu yahay dadka badanaa waxaa tradition u ah ama waxaa dhaqan u ah qofka marka uu rabo inuu cayilkiisa uu dhimo wuxuu jarayaa ama uu yareynayaa cuntooyinkii usually caadiga ahaa ee uu cuni jiray. marka halkaas ma haddii uu qaato maalin walba kaab isaga meeshii ayuu u buuxinayaa, laakiin ruuxa kale ee cuntooyinkiisa kale cunaya maasha allah tabaarakallah maxaa la yiraahdaa isaga wuxuu u baahan yahay inuu maalinkii wiigi inuu 1 koob qaato ama wiigi inuu 2 kaab qaato maasha allah tabaarakallah. also waxaa kaloo u isticmaali kartaa qeyb yar oo isaga ah in waxyaabaha kale oo aad shiidanaysid aad ku dartid. haddaba wuxuu ku imaadaa noocyo fara badan ayuu ku imaadaa maasha allah tabaarakallah. waxaa ugu muhiimsan marka uu yahay dhirta sideeda u baxday oo ilaahay subxaanahu watacaala beetrootkii ama baytiraafkii organic ah oo mataqaanaa gacantaada ku samaysatay, that is the best way maasha allah tabaarakallah. other way around waxaa heli kartaa isaga oo ah budo ah oo lasoo shiiday organic storada ayaa laga helaa, inkasta oo wax yar macaankiisu uu badan yahay oo aa u baahan tahay markaas in aa ku darsato ama aa ku dhex qasato cabitaano kale ama fruit kaleeto ama vegetable kale in aa mataqaana aa ku darsato maasha allah tabaarakallah. isagoo kaniini ahna waa jiraa qofkii u baahan, balse waxaan dooran lahaa maadaama aan jeclahay inaan idinla qaybsado jiritaanka ay jirto inaan idin sheego waa mataqaana maasha allah tabaarakallah. waxaa weeyaan wax lama huraan ah, adiga ayaa joyskaaga iskale, laakiin haddii aad tiraahdo umumunay maxaa qaadan lahayd, waxaan qaadan lahaa midka aniga gacantayda ku shiito, adna kaasaan kula jeclahay maasha allah tabaarakallah. inaa mataqaanaa asagii oo qoyan intaa soo qaadatid lacag badanna ma joogo maasha allah, meelaha qaarkood meelaha kale allahu aclam kama warqabo, laakiin waa accessful meelo badanaa laga helaa. waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha allah tabaarakallah in wadankeeni laga helo, soomaaliya laga helo, africa laga helo maasha allah tabaarakallah. walaalahay reer soomaaliya reer africa maasha allah tabaarakallah, gacmo furan soo dhawaada in idinkana mataqaanaa aad iyo aad uga faa'iideysataan maasha allah tabaarakallah. meel walba oo aan joognaba waxaan nahay ummad soomaaliyeed ayaan nahay, walaalaheen soomaaliyeed iyo wadankeenana maasha allah tabaarakallah meel wuxuu noogaga yaalaa maasha allah tabaarakallah aad iyo aad u fog. marka ka faa'iideysta walaalaha kale ee soomaaliyeed dunida dacaladeeda meel allaali iyo meesha aad ka joogtaanba waa ka wada faa'iideysan kartaan. aad iyo aad buu mataqaanaa u qiimo badan yahay marka inaad waxyaabaha aad ku dareyso noloshaada aad ku dareyso. caafimaadku waa qaali, marka waxaana laga rabaa aniga iyo adigaba inaan waxyaabo fara badan daily basiskeena aan mataqaanaa nolosheena aan ku darno, mararka qaarkoodna aan nolosheena aan ka bedelno oo ay ugu weyn tahay waxa aad consume garaynayso, waxa aad qaadanayso maasha allah tabaarakallah. marka beetrootiska siyaabahaas oo dhan ha looga faa'iideysto. ruuxii xanuun
xanuuno qaas ah leh biidni illaahi baari dhakhtarkaaga la tasho mar walba ee consulti gare ee dhakhtarkaaga si mataqaanaa oo la wadaagto waxyaabaha a qaadanayso iyo waxyaabaha a cunayso laakiin haddaba researchkan ama cilmi baaritaankan aan idinla sheergareeyay waa well known meel walba ayaa mataqaanaa aa ka heli kartaan dhaqaatiirtiina ayaa la sheergarayn kartaan munaafacaadka iyo mataqaanaa maasha allah tabaaraka allah waxyaabaha uu leeyahay oo aa weydiin kartaan biidni illaahi baari ilaahay subxaana watacaala waxaan idinka rajaynaya aniga iyo idinkaba kuwo mataqaanaa ka faa'iidaysta in aan noqono waxyaabaha dabiiciga ah sida dabiiciga u baxay hadda adduunka uu iskugu tagay maasha allah tabaaraka allah all study la arko all food is a medicine walaalahay soomaaliyeedow cuntada ayaa waxay tahay daawada koowaad waa cuntada maasha allah tabaaraka allah ruux walowba saa u hagaajin lahayd kor ugu qaadi lahayd inaa cunto caafimaad qabto oo fasiixi ah dabiici ah in aa hesho biidni illaahi baari aniga iyo adigaba aan ku dadaalno waa walaashiin umumuna oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you.